kulan wacan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeena iyo muuqaalkeena idiin soo gaarayo idiraantiin waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka raadiyaha TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho. barnaamijka alaaba waxaanu ku martiqaadnaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed kuwooda inta badan takhasuska u ah mowduuc ka mid ah mowduucyada bulshada markaas ay u baahan tahay mahada ka gaarto maanta waxaa marti inoo ah oo waqtigiisa inoo horay bulshada aan u gaarsiino wacyigelinteena Dr. Axyaaudiin Cali Cusmaan ayaa marti inoogu barnaamijka dhakhtarka dadku waxay inta badan u garan og yihiin Dr. Axyaa waxa uu ku takhasusay dhakhtarka indhaha wadaan dhakhtar indhood jaamacadda darajada koowaad iyo tan labaadna wuxuu ku soo diyaariyay Tehran 13 sano muddo gaaraysa ayuu dhakhtarku khibrad u leeyahay haddana waxa uu ka howlgalaa xarunta caafimaad ee Axyaa Eye Care ayuu ka howlgalaa ama xarunta daryeelka indhaha ee Axyaa oo dhakhtarku ka howlgalaa waxaan rabnaa inaan marka dhakhtarka aan kala sheekaysano hadii ay bawraale ka noqdo caqabadaha indhaha ee dhanka xanuunka inta badan soo wajaha dhowr su'aalood si bagbliga u weydiin doonaa iyo markaas wacyigelinta bulshada sida looga qayb qaadan karo ee loo gaarsiin karo arrimaha aragga ku saabsan Dr. Axyaaudiin aadan kaaga mahad celinayna waqtigaaga inoo hortay kusoo dhaw Shabeelle TV waa dhawaa Shabeelle TV aad u mahadsantihiin maadaama ka qayb qaadateen wacyigelinta bulshada qayb weyn lixad leh aad idinkaga mahad celinaa soo dhawaada insha Allah waa mahadsantahay Dr. waa ku mahad celinaynaa waxaan rabnaa bal dadka inaan si af Soomaaliya oo dabacsan oo ay wax ku fahmi karaan inaan bal uga sheekayno caqabadaha indhaha soo wajaha bal marka hore sharaxaad naga si caqabadaha ugu badan indhaha soo wajaha maxay yihiin caqabadaha indhaha wata xaalado badan ay isugu jiraan xaalado cuduro indhaha ku dhaco sidoo kale waxaa jira waxyaabo qofka uu asiga gacantiisa ku sameystay oo indha xanuuniyo oo asiga cudur aan ahayn laakiin eye strain la isku dhaho oo asiga waxyaabo uu gacantiisa ku sameeyay keeni karto asiga abuurtay marka isbitaal markuu tagaa laga yaabaa in cudur laga waayo laakiin wuxuu asiga sameeyay si caadiyan maalmaha u sameeyayo in uu dhibaato u keento xagga indhaha intaas isugu jiraan xanuunada indhaha ku dhaco xamar iyo gudaha Soomaaliya marka ay eegto marka xanuunada ugu badan ee dadku ka cawdaan ee aragga maxay yihiin dadka haddii ay ka fog yihiin oo kale magaalada oo kale ama baadiyaha ka imaanayaan badanaa waxay dhibaato ka qabaan cudurro indhaha ku dhaco laakiin dadka magaalada jooga kale waxay inta badan ka sheegtaan haddii marka laga soo tago xasaasiyadda marka laga soo tago draa ay wax leedahay indha qaleel ay ka sheegtaan waxay leedahay computer vision syndrome oo ah xanuun ku soo kordha cudurrada indhaha dhawaan oo waxyaabaha shaashadaha aaladaha xanuun ay keeneen ayadana waa keeni karta dadka magaalka joogo xaaladahan aaladaha qofka isticmaalayo si aan kala joogsi lahayn maadaama uu isticmaalayo indhihii way daalayaan indhaha marka bini'aadamka waxaa loogu talagalay daqiiqadii oo kale 12 second 12 jeer inuu ilbiriqsada loogu talagalay saa markaan hadda tan indhayga fiiris waxay markaa joogo indhaha isku ilbiriqsanaya laakiin qofka markuu shaashadiisa fiiraa wuu hilmaamaya inuu ilbiriqsigaas marka waxyaabaha keenaya waa indhihii inay daalaan maadaama uu murqihii indhaha u isticmaalayo taas waa marka waxaa leedahay computer vision syndrome ayadana waxyaabaha indha qaleelka laftirkeeda keeni karto oo inta badan ay u imaadaan xarumaha caafimaadka indhaha indha qaleelkaas waxa suurtagal ah dadkana daawanaya inaysan la fahmin koon dhageysanaysa sax oo maxaa laga wadaa qaleelka indhaha indha qaleelka waxaa laga wadaa ilintaada in ay tayo ku fiican ee isha ay qoynin taasoo ah ishaad inay yeelataa laga yaabaa ilin laakiin ilinta wuxuu leeyahay qaybo kala duwan qayb saliida jirto waxaa soo daya qanjir leh meibomian gland jiro oo isha baalashii hoose ay soo deynayaan marka ilintaas marka qaar saliida isha ilinta soo galaysa laga yaabaa inay saliid ku filan ay helin marka qofka isha waxay isku dayaysaa inay ilin badan soo dayso si uu qoyso marka isbitaalka markuu imaadana waxaa laga diagnose waxaa lagu sameeyaa qofka indha qaleel qabo waa la baaraha baaritaan lagu ogaadaa in saliidaas ay ku dhex jirto ilinta inkastoo noocyo badan ay leeyihiin qaleelka xataa nooc oo meibomian gland qanjiraha saliida soo daa xataa marka qaar wax ka baxsan ay noqon kartaa marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa ilinta oo si sax ah sida la rabay aan isha u qoynayn ay noqon kartaa indha qaleel taas lagu magacaabo qaleel adiga markii bukaan ku yimaadaan indha qaleelkaas qabo soo barta waxaa jira testiyo laga qaado ilintiisa kadib lagu ogaanayo in uu xaaladan leeyahay kadibna bukaanka waxaa la wargelaya inuu xaaladan leeyahay marka waxaa jira daawooyin la siiyaa jiro daawooyinka kaalmaati waaye daawooyinkaana waxaa jira stage kala leeyihiin stageka mar walba uu jiro ay ku xiran tahay qaabka uu caawinayo
sidoo kale talooyinna waa la siiyaa uu ku dhaqmaayo si oo mataqaanaa ay indhahuurkaas cuncunkaas waxyaaba xasaasiyad u dhowe badan ay leedahay calaamadda oo laga yaabaa qofka inuu xasaasiyad ku qaldo laakiin ay tahay indha qaleelka. waa gartay dadkeena waxaa inta badan ka sheegtaan xasaasiyad. sax xasaasiyaddu ma wax indhaha u gaaraha ma wax maaragtay indhaha ay ku dhashaana wax ku dhaca ma wax cunnada laga keenaa war meesha sharaxaad maysa. xasaasiyadda horta keliya indhaha kuma dhacdo waa jirka oo dhan ay ku wada dhacdaa waa shay antigen la dhaho oo jirka dhibsanaayo ayaa qofka wuxuu keenaya inuu jirkiisa falcelin ku sameeyo uu shaygaas uu dhibsanaayo ma fahamtay sida jirka kalena ay qayb ugu tahay haddana indhahana waxay keenayaan waxyaabo ay dhibsanayaan oo ishooda ay xamili karin markay isha gasho dadka way ku kala duwan yihiin waxa gooniya ma jirto dadka qaar laga yaabaa in la dhaho kale digirta ka fogaaw waxaa laga ukunta ka fogaaw doorada ka fogaaw waa hal shay oo ka mid ah maadaama brotiin maadooyinkaas ay leeyihiin inta badan marka baaritaan la sameeyey brotiinka maadooyinka leh inta badan allergiga u kiciya laakiin qofku dadka ku kala duwan yihiin dad waxaa jiro xitaa ay ku kiciso foodariga oo lagu seexanayo ka qaadayaa jiro xasaasiyad marka qofkaas laga yaabaa inuu maartoon ukun ka fogaado waxyaabiyo dhakhtarka u tago waxyaabahaasna ka fogaado haddana wixii uu ku dhex jira laga yaabaa marka baaritaan gooniya leedahay xataa testiya laga qaado maqaarka jiro oo qofka lagu ogaanayo qofkana waxyaabaha ku kicinaya xasaasiyad asigaa ogaan karo dhakhtarka uma sheegi karo inta badan waxay dhahaan aniga dhakhtar hore maxaa xasaasiyad u kici karo waxaan ku dhahaa si toos ah adiga ogaan kara adiga iga og baaritaan ku samee gurigaaga environmentiga bedel meesha aad joogto bedel markaad guriga ka imaatid oo kale shower qaado waxyaabahaas adiga baar kadib adiga markaa ogaatid kadib ka fogaaw xalka ugu wanaagsan waa inaad ka fogaatid waa daawooyinka aan siino waa kaalmaati uun waxyaabaha uu dareemaya culeyska inay ka yareyso waa intaas. waayahay hadda doctor sidaad og tahay waxaa inta badan lagu isticmaalaa telefono oo screen ah waxaa suurtagal dhalinyarada inay qadka iskaga isticmaalayaan ama filmo ku daawanayaan ayagoo sariirtooda saaran oo kiyaalo wadan nal oo soo shidnay caqabadaas horta waxyaaba u baahan yihiin bulshada waxaa waa in la fahansiiyo waxaan wax hadda lataan aaladaha shaashadaha lama dhihi karo iska joojiya waa ku dhex jiraa qofkii dhegta kale uu ka bixinaa marka waxaa loo baahan yahay waxyaabaha aaladahan oo isticmaalaya technology nolosheena ku dhisan sida saxdana u isticmaal wax walba waxay leeyihin si sax iyo si qaldan haddaa u isticmaashid way kuu keenaya xaalad si sax haddaa u isticmaashid waa sidii la rabay marka waxyaabaha u baahan yahay qofka shaashada isticmaalo waxaa jiro waxyaabaha jiro inuu ka taxadaro waxaa ka mid ah rules mar walba aan ku soo celiyaa 20 daqiiqo walbo 20 second meel 20 feet u jirta hafiya markuu 20 daqiiqo mobilkiisa isticmaalo 20 daqiiqo walbo markuu isticmaalo 20 second wuxuu fiinaa meel 20 feet u jirto 20 second wax yar waa ilbaa saas dhahawa marka waxaa laga hortagayaa in waxa waaye fiiriskaas faraha badan mid ay xasuusiyo ayaga dhibaato ma keenayaan mobilka in ka badan dhibaato leh cadceedda mar walba aan ku dhex soconaa ka dhibaato badan marka iftiinka uu soo daayna iftiin ma ahan oo khatar aad u wadato xataa khatarta ee mobilada ee keento UV ma lahan UV waxaa la cadceedda ugu khatarsan dhibaato indhaha u keento ma lahan waxay leedahay qayb blue la dhaho hadda research way lagu sameeyo baaritaan lagu sameeyo marka iftiinkaas soo baxaya ma ahan dhibaatada inta badan iftiinka u malaa way gaabinayaan ma ahan waa fiiriska aad fiirinayso oo kala go'da lahayn waa marka waxaa la sameeyaa ilbiriqsiga indhaha la isku qabtaa waa la kala furaa indhaha la isku qabtaa waa la kala furaa meel fogaa la fiiriyaa waa intaas inkastoo buluuga xataa iftiinka soo bixi xataa research lagu sameeyo oo glass waxyaabo ka difaacaya uu jiro waxaa jiro kale mobilada casriga oo 2013 wixii ka dambeeyay kale qayb waxaa jiro blue filter ama night mode waxyaabo loo soo ziyaadaa jiro oo la shito wax loogu talagalay waxa waaye iftiinkaas badanaa wuxuu sameeyaa waxa waaye maahan inuu indhaha dhibka u ka yareena waxa waaye iftiinkaas waxaa la ogaaday inuu keeno dhafarka qofku waxaa laga yaabaa habeenka haddii uu mobilka isticmaalo kale mise computer inuu iska dhafrabo oo la arko inuu waayo ku bari waxaa waa ilaaha u sameeyay habeenka mugdi maalinta iftiin marka mugdigaas oo habeenka ilaaha ka dhigay adiga waxaa ka dhigtay maalina ka dhigatay marka iftiinka la wada baaray iftiinka wuxuu leeyahay wavelength wax oo qayb kala duwan hirka waxa la ogaaday qayb kamid ah marka inuu leeyahay qayb oo qofku oo ka dhigayo energy u yeelayo marka qaybtaas marka laga filter gareeyo marka qofkaas inuu fahansanaado waaye ma ahan oo kiyalkan gashana habeenka ilaa habeenkana ku soo jeedaa dhahay waxba kuma soo kordhina marka ficilka aad sameynaysid oo ku xiran tahay iyo sida saxan ah u isticmaalaysid aalada marka qaarna waxaan loo sheegaa hadii aad gaarada computerka ku shaqeynaysid intii ka soo baxaya halka uu shaado toos ugu dhexlahay
وقالها سكاحني تسمع كتير أنا إفتين كوعلنا وصح واي لكن وحكينا وكلا إفتين كاس مركو إيش نقول قيبت البلوغ اللي هذا وكلا قفك هرمونيس أو حاجر أو قفك أو إنه سود جيدا كده جاي هرمونيس كاس مركي أو جرك سود دين لهاي أو أديك كسبني سنو إفتين كاس إنها كله عماشة كهراي مركين هردوك قبتها الجيابا marka taasa keenay iftiinkaas oo isha ka cili wicilna waa sax iftiinka wicilna muraayada ina hurdootina waa laga yaabaa laakiin adiga hadii aad maskaxdaada ku programsana soo jeedid markaasna waxba kaama qabanayso ma fahanti marka kan waa caawinaad qayb kamid ah waa iyadana way doctor qofka waxa nolol aragaaga la soco sidee aragga qofka la soconaya idinkan ugu xiraan karaa aragga Soomaalida hadda waa la isla wada yaqaanaa waa dhibaatada saxda oo jirto waa la fahansan yahay aragga qofka wuxuu la socon karaa qofka inuu dhakhtar yeesho qofka markuu dhakhtar yeesho qofka nafsadiisa iyo xaaladiisa indhaha wax ku soo kordha dhakhtarkaas wuu la socon karaa haddii xitaa dhakhtarkaaga aad la socon xitaa document lahaa maanta marka dhakhtar indhaha u tagtid oo kale faylalkaaga xafido iskaanada baaritaan laga xafido dhakhtarka dama u tagaysa tusi laakiin maanta dhakhtar u tagay sanad kadib 2 sano kadib waa un adiga una islu gooynayo ma fahamtay xaaladda marka badanaa oo indhaha qabsato xanuun ma aha badanaa cudurrada indhaha ku dhaco wax calaamad ma lahan xanuun ma lahan araggan waxba kama dareemaysid ilaa heer dambe waa sababta marka baaritaan indhaha loo sameeyo mar walba in laga hortago waxyaabo oo xil dambe la ogaan lahaa in laga hortago marka haddii uu dhaqaatiirta uu dhakhtar gooni ah yeesho waxa laga yaabaa in beej cusub loo furo kale oo xitaa la soo laabashada xitaa qiimo ay kaga bixin oo loo xitaa adiga maanta sanadkan waa fiican tahay sanad dambe soo laabto waa fiican tahay sanad dambe laga yaabaa wax yaraa ka ajira laga yaabaa oo laga hortago wax marka waa un la socoshadaas marka haddii uu dhakhtar ku xirnaado waxay yaraanaysaa dhibaatada uu ku sii fogaadaha iyo asiga laftirkiisa cabsida uu dareemi lahaa tusaalaha maanta dhakhtarda u tago cusub waxa laga yaabaa inuu ka cabsoodo iyo sheeg stress oo ku furo sababta waxaana keenayo oo Soomaaliya inta badan markuu xanuun qabto ama markuu cabasho qabto dhakhtar u tagaa dadka la dhahay aragaaga la soco indhaha la soco waa dadku waxba aan dareemin qofka kale asaaba tagayo laakiin qofku waxba aan dareemin aragiisa u fiican yahay caruurta ugu muhiimsan caruurta markay saan u dhashaan oo kale baaritaan ay leeyihiin 3 sano markay baaritaan ay leeyihiin markay jiraan oo kale markay iskuulka galayaan ilaa anigu wax ma og ma kala ogo markuu hadhowtii oo 15 sano gaaro iskuulka uu dhiganayo wuxuu dhahay hal il wax ma ka arki sida dhacdo kale kiisas noogu imaaday kala oo hadeertaan aan xataa social media ku soo jeediyay anigu waxa arkaysa hooyada la socoto oo hal il wiligeed wax ka arkin oo u maleysay dadka hal il wax ka arkaan waxyaabaha la diidayo oo la socoshada u baahan in qofka uu la socdo xaaladeeda anugana ilma caruurtana ma ogaan karaan marka dadka badanaa caruurta ilgooniha u lahaadaan waxay ku leeyihiin markuu weynaado ay cudurka baxaya tusaalahan waxa arkaysaa xasaasiyada canuga Allah iyo kale waxa leeyahay markuu weynaado ka baxa waxyaabahaas wax oo ma aha guarantee ma ahan ishiis way dilaysaa xuqista indhaha kale oo indhaha xuqaayo kale way dilaysaa cudurna wax walba haddaan xilligeeda hor laga hortagin wax daawo ma laha marka dambe ma fahanto xilli hore in la qabtay ku fiican tahay cudur oo cunu ilmaha bas ku dhaco oo weynaan ku baxayna ma jiro waa ku celiyaa waxaa jirta nooc kamid ah allergiga jirto oo qofka markuu tabartiisa jirkiisa isbedelo uu ka baxayo garantiina ma aha ma fahanti waxa nooc kale isku bedel laga yaabaa marka caruurta oo dadka waalidiinta caruurta gacanta ku hayo marnaba ay ku fikirna canug waaye markuu weynaado tusaalahan waxa kamid ah taa ookiyaalka inay ku dhahayaan canug yar waa ookiyaal ma markuu ilmo ma ookiyaal qaato canug hadduu ookiyaal u baahan habeenkoo dhashaa loo xiraa habeenkoo dhasho loo xiraa ookiyaalkana dadka waaweyn sida u saacido iyo dadka yar u baahan waa sababta aan qofka 13 sano markuu ka weyn yahay hadduu ookiyaal iska siibaadey kale wax indhihiisa soo kordhinay ma leh laakiin caruurtu way ka duwan tahay maskaxdooda koros cunuga aragiisa wax laga arka maskaxda waa maskaxda sawir la tusin xaaladda lazy eye oo kala jirto oo isha caajisto kale waxa laga yaabaa inuu markii xaaladaas ay ku fogaato qof weyn noqdo inuu imaado indhihiisa wax ma qabaan waxa laga yaabaa ookiyaal yar la siin lahaa oo fax oo ku noqon lahaa in la siinin uu ku weynaaday qaybta maskaxda wax arkaysa dantayba marka waxyaabahaas dhibaatooyinkaas ay leedahay baaritaan indhaha haddii aan la sameyn sanadkan waxaa jiray baaritaan tirta tahay dunka oo indhaha taas oo jeclow indhaha sax jeclaaw indhahaaga sida halees ka muuqato waa in indhaha qofka uu jeclaado waxa la jeedaa daryeel gooni inuu siiyo inuu ka taxadaro
baaritaanada indhaha aan sheegayo kale qeybay ka tahay in qofka sanad walba baaritaan indhaha sameeyo caafimaadkiisa guudna ka warhayo xagga daryeelka indhihiisa macluumaad u baahan yahay inuu ogsoonaado uu ka taxadaro waa uun qaab uun daryeel gooniha si yaa loola jeedaa indhahaaga marka dadka tutoraad marka aad eegtid sanadba sanadka wax isbedelaya had dadku ma u muuqdaan kuwa kusoo xirmay dhaqaatiirta wax soo fahmaya mise weli meesha tutustaykeeda taagnaa iyo ka horaa la jooga wallaahi bulshadu way isbedeshay macluumaadkii dadka sanadihii hore haysan jireen in ka badan ay haystaan qofka guriga soo jooga wax walba adduunka qarsan ma lahan dadka indhaha u furan anaa dartaan dadka igu imaado barteeda kale inta badan xanuun ma qabaan waxay leeyihiin anaga social media ka aragnay waxaan u baahan baaritaan indhaha guuda u baahanahay haddartaan 60% dad xanuun qaba ma ahan waa iska imaanaya baaritaan indhaha sameynaya marka way gaartay wacyigelinta way gaartay dadkan waa dad indhahooda kala furan yihiin adduunka la socdo sida hore ma aha isbedel fiicanaa jiro haddartaan waxaa la karaa qofka xamar jooga mise baadiyaha jooga qof yurubiyaano marka qaar ka ilbaxsan yahay marka ma jirto xilliyadii hore oo aaladaha ama isheeg manbac fiican u helen macluumaada kale ama ilbaxnimada hadda way ka baxsan yihiin dadka bulshada aaday u ilbaxsan yihiin okiyaalo oo garaataha qortaan dadka waxaa dhahaa cabirka waa saas intaas cabir ah u baahan tahay lagana yaabo dadkii aad u qortay inaysa fahansaneen waxaad ka hadlaysaa leedahay cabirkaaga intaas okiyaalo noocaas u baahan tahay bal arrintaas see isku qodsiinaya cabirka aragga horta way kala duwan yihiin waxaa jira wax la yidhahdo myopi daciifida aragga fog waxyaaba lagu saxo haddartaan kanoo kale waa il waaye isha waaye ishayna waa il isha macmala waaye haddartaan haaf loo jaray oo si gudihiis loo arki karo hadda isha markay inta iftiin gasho waxaan rabaa inay fahantisid ookiyaalka wax loo xirto macnaa muxuu yahay muxuu taraa iftiinka kale hadda isha markuu galo iftiinka waxaa laga yaabaa inuu dhex istaago iftiinka ahaa sawirka inuu dhex istaago meesha sawirka ka samaysamata halkan iftiinka haddii uu gaaro oo neerfaga ah sawirka qofka uu u gudbinayaa maskaxda uu arkaya marka qofka waxaa laga yaabaa inuu ishiisa wax cuduraysan laqeen oo fiican yahay maasha laakiin qaabka ishiisa u samaysan tahay iftiin markuu gaaro inuu dhex istaago ama inuu gudbo marka ookiyaalka wuxuu sameynaya waxaa waaye lensigan oo ookiyaalka la siinaayo iftiinka haddii dhex uu gaarsiisan yahay inuu gaarsiiyo oo dadka oo meeshan oo refle oo u sameeyo meesha inuu gaarsiiyo haddii uu dhaafsiisan yahay inuu soo dhaweeyo oo meel dhex uu gaarsiiyo oo meeshii loogu baahnaa uu gaarsiiyo ookiyaalka intuu sameeyo intaas waa ma fahantay haddii qofku ookiyaal muddo badan qaato micnaheeda ma ahan ii sheeg aragga usoo laabana aragga usoo celinaa ma aha waa caawiyo waa keliya caruurtaa laga yaabaa maadaama ishooda isbabedelayso tusaalahaan isha haddii weynaato waa dhexdina istaagtaa laga yaabaa iftiinka haddii isha yaraato qofku ilaahay u sameeyey waa ishiisa waxaa laga yaabaa inay iftiin gudubtaa laga yaabaa marka meeshaan waa meesha dadka inta badan ay fahansaneen tusaalahaan waxaa laga yaabaa canug in ookiyaal loo xiro ama qof inuu dhalinyaroo kale 12 inuu ookiyaal xirto markuu muddo qaato waxaa laga yaabaa in ookiyaal ka maarmo araggiisa u fiicnaado marka dadka wuxuu ugu sheekeynaa aniga ookiyaalka aragga uu isoo celiyay ma ahan ishaada koriimo ku socotay ishaada koriimada isbedeshay awgeedaa keentay qof kale laga yaabaa in uu isheeg waxyaabaha kale dadka isku qaldanaan ka hadlaya qof kale waxaa laga yaabaa ookiyaal uu xirtay da weyn uu ku xirto kale ishiisa koriimada u dhamaatay markuu ookiyaalka qaatay 5 sano wataa qofka kale oo araggii isbedel laga yaabaa inuu ag joogo marka qofkan markuu muddo wato ookiyaalkii wax kuma soo kordhinayo 5 sano wataa 4 sano stress oo qaada walwal waxa ookiyaalkan waxba kuma soo kordhin waxa ku sii dheer ookiyaalka markuu iska bixiyo wuxuu dareemaa sidii markii uu hore ahaa in ka daran shuuc uu dareemaa waxaana keenayo wuxuu ku leeyahay marka qofkaas ookiyaalka araggooba iga sii qaaday sababta marka meeshaan ka jirto waxa waa sax marka ookiyaalka iska dareemo oo iska bixiyo inuu shuuc dareemo waxa keenayo maskaxdeen la qabsi ay jirto adaptation ay jiro markuu qofka ookiyaal la qabsado maskaxdii waxa isla qabsay araggaas kadib uu doorbida maskaxda doorbida markuu iska bixiyo marka sidii hore laga yaabo inuu walwal dareemo marka ookiyaalka oo ku soo celiya aragna kuma soo celinayo aragna kaama xumeynayo laakiin araggaas in uu mataqaanaa oo ku sii nolol maalmeedka inuu qayb ka ciyaaro haddaba qofka aragga fog daciifka hadduu dhaho aniga ookiyaal ma qaadanayay inuu aragga iga sii xumeeyaa asila isla goynayo
asiga le mataqaanaa laga yaaba inuu darawal yahay oo kale oo shil gala laga yaaba hadduu arday oo kale waxbarashadiisna hoos u dhacdaa laga yaaba ookiyaalka nolol maalmeedkaa uu qayb ka ciyaaraya marka mafhuum gooniya oo sax inay qofka helaan qofka wuxuu ka saacidaa in uu ku faraxsanaado xaaladda uu yahay door muhiima ay ka ciyaaraysaa waa hagaag daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamijka la hadal dhakhtarka ee raadiyaha tv-ga shabeelle magaalada muqdisho barnaamijka martida waxaa igu amaahda ka gartay doctor axyaa udiin cali cusmaan oo markaasi bulshada u taqaano doctor axyaa waxa uu dhakhtarku ku takhasusay indhaha waxa uuna darajada koowaad iyo tan labaadna kusoo diyaariyay teheraan muddo ka badan 13 sano ayuu khibrad u leeyahay haddana waxa uu ka howlgalaa xarunta axyaa eye care dhakhtarka caqabadaha indhaha soo wajaha ayaan kala sheekeysanaynay doctor adiga waxaa aada u isticmaashaa social media maxay tahay aragtida kugu kaliftay in aad media ku gudbiso dardaaranka wacyigelineed ee aragga la xiriira horta sanada 2018 waa xilliga aan waddanka kusoo laabtay waxbarashada markaa aan soo dhameeyey ka horna waxaan ka shaqayn jiray isbitaalada markaa dalka Teheraan oo kale aan ka shaqayn jiray marka waxaan arkay dadka bulshada halkaas joogo kale markaan isbitaalka joogo marka qaar macluumaadka ay haystaan macluumaad jaamacada ku dhigano waayo waxay ku leeyahay aniga xaaladaas aan leeyahay waxyaabaha isku arkay si fiican wax walba u kala sheegayaan mu baahna ma ku daaliyay xitaa ma ku daaliyay wax walba ku kala bandhigaa xaaladan san waa baaray waa galay marka inta ku laabtay sanadka koowaad rafaadaan ka maray bukaano waxaa arkaysaa isbuuc ka hor isbitaalka imaaday wuxuu ku leeyahay xaaladaada ka war indhaha xanuunaayo way ilmeynayaan cuncun waxaan ma dhaafsiinayo marka xaaladda qofka ma fahansana magaceeda ma haysto inta sano haysamay marka waxaan fahmay in dadka bulshada macluumaad ay ku yar tahay oo xaaladooda marka waxaan isku dayay inaan sameeyo anoo marka sidii ku jira adana aaladaha way ii saacideen aaladaha qaar marka dhawaan soo baxay inaan mataqaan si sax ah dadkana ay faham fiican ay helaan ay aad igula socdaan xagga barta bulshada TikTok dadka isticmaalo kuma noqdaa sax waa TikTok ka hor oo kale Instagram aan isticmaali jiray views fiican oo kale ma helaysid waxa laga yaabaa dadku ugu xiran wax yar macluumaad ay helaan 100 qof 10 qof ka la socoto mar una iska soo qabsay TikTok waa iska gudbiyo waxa arkay dad badan la socdaan dad badan marka waxa arkay inay tahay aalad markaas aad u saacideysa wacyigelinta qayb lagu qaadan karo oo si fudud qofku sahlaysan wixiisa message-kiisa ama fariintiisa uu ku gudbiyo waa gartay ugu dambeyntii doctor marayna ka shaqsiyaad ahaan bulshada kugu xiran ku dhamaatay aad dareentay sidoo dhaqantaa wallahi waxay ku fiicnaan lahayd in ayaga la keeno ay ka warbixiyaan inta karaankii waa ku dadaalaa inaan si oo furfurnaan leh sida ay barka bulshada ay u arkeenba inaan ula dhaqmo markay joogaan qof walba inta imaadana wajiyo kala duwan ay yeelan laakiin sida ugu fiican ugu dhaqmaa anigoo markaas khibrada oo dhakhtarnimo isticmaalay iyo khibrado kale oo ishaag aan markaa aan isbaray in qofka sida ugu fiican ula dhaqmo aadayna mataqaana ay ugu amaanaan in ay ula socdaan dhaqaatiirta inta badan waxaa lagu eedeeyaa xagga ganacsiga furtaan dhaqaalaha ka raadiyaan goobaha caafimaadka numberka qofka soo jaro soo noqo dhowr bilood kadib soo noqo axyaadiin ma ka qayba dhaqaatiirtaas mase luga ugu jirta horta mar walbo markuu qof uu xarun furto waxaa loo baahan yahay in ay kala socoto ma fahamtay inay kala socoto waa dhakhtarka iyo businesskana marka qaar in ay saan isku galaan ma fiicno ma fahamtay laakiin wixiis inuu cadeysto tusaale ahaan dadka badanaa waxay isweydiinayaan waxaa waaye ookiyaalayaal loo qoraa oo difaac ah marka qofka markuu imaado waxaan ku dhahaa aniga ookiyaalka oo aragga difaaco oo iftiinka difaaco waxaa waaye qof walba waa la sii karaa qof walba waxaa waaye caafimaadka indhihiisa qayb ka qaadanaysaa marka waxaan dhahaa ookiyaalkan caafimaadka sunglasseska ka mid ah iftiinka wax celiya labadaas inay kaa difaacaan oo dhibaato ku imaan ay ka hor istaagaan waa mataqaanaa isheeg waa wax dhibaato ka hor istaagaa haddii aad qaadaan dhibaa kuu imaanayo marka haddii uu qaato ookiyaalkiisa oo isheeg uu qaatona waxay u tahay kliniga xaruntana dhaqaale u tahay qofkana difaaci u tahay ma fahantay qofkana asigaa joyce iskale laakiin in loo kala saaro hadduu qofku cudur leeyahay in loo sheego cudurka haddii uu waxyaabo oo jiraan oo kale oo difaac ama cosmetic oo kale ama qaab qurxin oo kale hadday tahay qaab difaac in loo kala saaro qofka asaa joyce iskale caafimaadkiisa laakiin markii qofka loo kala saaro wixiis asigaa joyce iskale laakiin wax oo ma jiro oo qasab ah soo laabo waxaas wax la ma jirto
sanadkii waa hal jeer baaritaan samey adiga option iskale haddii baaritaan indhaha samaysid adigay faa'iido kuu tahay ma fahantay agabyada oo qaar waajibaa jiro oo waajib waa lagu kala sheegaa qaar kaloo waxaa jira oo waajib ahayn oo ii sheeg uun caawinaade oo adig ku caawinaya ka hortagna marka badanaana adigaana joyce u leh qofku waa in loo kala sheegaa saas wax ma jiro dhakhtar uu ku qasbayo kaleetii kusoo qabanayo oo lacag ama wax kaa qaadayo ma jiro ma fahamta waa intaas waa marka waa mahadsantaha doctor aad ku mahad celinayna waxaan rabaa gabagabadii aan soo gaarnay dardaaranka iyo talada aad u marinaysid Shabelle TV bulshada ku xiran maxay tahay bulshada wata qeybo kala duwan ay isugu jiraan dad wax bartay ku jiro dad inuu aqoon la gaarsiiyo u baahan ku jiro waxaa ku jira dhaqaatiir ku jirta dhan walba isugu jira waxaan aniga ahaan talada aan u soo jeedin lahaa waxay tahay in la isku qalbi fiyoobaado in mataqaanaa lis caawiyo qof kale wuxuu ka roon yahay inuu ku caawiyo haddartaan heer lama joogo oo aqoontaada aad ka xaasidid qof aqoonta meel walba taa laakiin haddii aad sida saxda ugu soo gudbin weyso qofkaas si qaldan u fahmaa laga yaabaa dhibaato u gaarsiiso marka dhaqaatiirta waxaan leeyahay igu xiran aqoontaada heerka ugu fiican oo si fudud qofku u fahmi karo u gudbisii hasdiin aqoontaada lacag waa in lacag aqoonteedu waa free waa qof walba waa mataqaanaa waa xaq u leeyahay inaan baro kaalmaadkii qofka in la caawiyana in loo soo jeediyo wuxuu u baahan yahayna waa meesha wax ku jiro oo ah tusaale ahaan qofaa ku imaaday waxbaa ku aragtay waxaas adiga kuma qusayso waxaa la rabaa inaad jihayn kartid oo dhigi kartid meeshaas aad xaalado qaar ka jiro aniga hadda tanfariid inta badan dhaqaatiirta ku socota waxaa laga yaabaa inuu qofka xaalad aad ku aragtid xaaladaas adiga ku qusay inaad dhahdid bas intaada kaa qoysa daawo u qortid aad dhahdid marka waxaa ku yar ha la badiyo reference in wax la isku gudbiyo oo dhaqaatiirta isla shaqeeyaan wax message isku gudbiyaan bukaanadana faa'iido u tahay marka meesha waxaa ka imaanayo bukaanadana inay aaminaan dhaqaatiirtooda meesha ka imaanayo ma fahantay bukaanada aaminaan marka bukaanada dhaqaatiirtana waxaa dadka bulshada waxaan kula talin lahaa in dhaqaatiirtooda ay mataqaanaa ku kalsoonaadaan ku kalsoonaantaas waxay door muhiim ka ciyaareen dhakhtarkii adiga inuu jecel dhex abuurmo kadibna ii sheeg daryeelkaaga caafimaadka indhaha inay door muhiim ah oo asina ay ka ciyaarto oo meel fiican ay gaarto waa tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka la hadal dhakhtarka raadiyaha TV-ga Shabelle magaalada Muqdisho barnaamijka mahadin ka gaarto waxaa marti igu ahay Dr. Axyaa-udiin Cali Cusmaan oo bulshada ay u garan og tahay Dr. Axyaa dhakhtarku waxa uu ku takhasusay indhaha daweyntooda waxa uuna ku guda jiray muddo markaasi 13 sano ah darajada koowaad iyo tan labaadna waxa uu kusoo diyaariyay wadankaasi Tehran doctorka hadda waxa uu ka howlgalaa xarunta lagu magacaabo Axyaa Eye Care maantana waxaan ku booqanay xaruntiisa doctor aad baan kaga mahad celinaynaa waqtigaaga aad inoo hortay aad baa mahadsantahay guud ahaan saaxiibayaal intaas uu inooga dhan yahay barnaamijka tan iyo mid la cayn intaan ku kulmi doono nabadgelyo